runtii waana ka xumahay in caawa uu wasiirka u maqan yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay professorka uu mahadsan yahay marka aniga hal su'aal ayaan weydiin lahaa professorka waxaan leeyahay professore Soomaaliya waxaa la yiraahdaa deynta lagu leeyahay 5 bilyan marka qaabka ay ku qaadatay iyo sababaha su'aasha kalena waxay tahay deyn cafinta Soomaaliya maanta maxaa caqabada hortaagan maxay tahay الثلاثة بروفيسوركا ديناري صحافة هي مدشان قروحة بدن لها dadkay noo sameeyeen taba mar waliba waxaan maqalnaa deena la cafina waliba ma maqlin waa la cafiyay marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo qaabka deynta loo cafiyo iyo meesha ay marayso waan maasantiin waxaan su'aal badan aan weydiino professor waa maasantahay su'aasha aan qabo waxay tahay deyn bixinta Soomaaliya sida la socono dawladeena maanta jirta waxa lagu eedayaa inay tahay dawladda ugu musuq badan Soomaaliya dalka Soomaaliya soo martay ilaa 60kii dawladdu waxay cadeysay sheegtay in deymihii laga cafiyay mar labaadna waxay tiri haddana deymihii ayaa dib u bixinaynaa arintaas professor soo laba arko arrin musuq ah oo jirta oo baartay aan la aamini karin deyn bixin kale mar kale miisaaniyada la kaba lacagii faranka valuutada fasax hala keeno waqtidaas qaadanay deymii ugu badnaa ka hor waa jirtay 77 kadib deymo yar yar laakiin deymahaas waxay ahaayeen deymaha anaka dawladaha naga dhaxeeyo kuwaas badan laakiin deymaha World Bank iyo waqtigaas qaadanay iyagas waxa ugu duwayeen kuwa kale shuruudahooda badan wadana deyn ka qaadato simple asagu ku cafi karo shuruud badan ma leeyahay inama dad iska cafiyeen laakiin hadii labadan hay'adood aad deyn kugu leeyihiin waa institution waa bank laftiisu faa'iido doon waaye shuruudooda waa ka duwan yihiin shuruudaha kale caqabadaha hortaagan hadda aniga ma aqaan waxaan rabaa cawada inaan wasiirka weydiiyo nasiib dar su'aasha kama jawaabi karo aqoon la'aan aan uga jawaabi karin qaabka loo cafiyo waata hadda ka hadlayna qaabka loo cafiyo qaabka aad ku qaadatay ku carad hadda aniga deyn aad iga qabtid qof ahaan waa ka cafiya ku dhigi karaa qayb isiya ku dhigi karaa arintaas haddaad dhamaysid shuruudahaas markaad buuxisid aan ku heshiinay aan ka cafina heshiiskaa saxiix waa isdulley camal waa kaaga cafina ku dhigi karaa qofka dawlad dhintana waa ka cafisaa dawlad dhintana waa dhintay aniga laga cafina hadda caalamka ilaa hadda kool kuweyda soo jeedisay shira u qabanaa inta deyn idin kule dawladdan ka hore ahayd anaa bilaabaya inaa waxaan kula cafiyay iyagana waa ka qancinaa inay idinka cafiyaan سينو سوين أنا كاتي جديد نوع نيجي كوري جوالان كوري جديد أنت أنا كولان كعفنا أنت كلا أنا كعد سنة فرصة داس دولة دارو مهلين دولة دي هراها لك كمان فائدة سن تكلا corruption عدو كهلا مشروع وزارة أو monitoring كان على هرمرنا أنت على الصحة أنت على الصحة World Bank وجولستان مانجمنت وقر حيالنا لير دلعك الله وحال الكوربشن نمبر 1 ادويده كتير وحال الراعي حدي لحد العقل السيو ما معموله كرانا ليله ده حسوستين ما معموله كرا انا معموله سو ما مرك انا ديني سينيس وحيوان انك باجي ليره انك باشتا داجير قفك ابا دانك اما مسكحده خدبي اما والله وحال يرا ابو والدكس دو خدنت والله معموله سو ما معموله كري أنا كنت دولة أنا حلا سيد دولة ما معمولة كران هذا تاجين إيه الله معمول سألنا إذا كم معمول ما أنا عندي دنيا كميته أنت أصير أنا عملنا سؤال بروفيسور هذا سيد وناكسن وواقف قاتي برنامج كان عن آديات وباهنين waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka su'aalo inkastoo aan jeclaa maanta wasiirka inuu ka soo qayb galo si isagana uu uga jawaabo su'aalaha ku haboon kulli su'aalihii ugu muhiimsanaa uu ka soo jawaabay laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo barnaamijkan waxaad noo sheegtay professor shuruudo badan inay ku xidhan tahay in institution ay deyn cafiyaan laakiin shuruudahaasi dawladii hore ma ku aqbashay mise dokumentiyada lumay ee dawladda ka lumay daraadeed
xilligii dagaalkii dukumentiyada daraaddeed yaa waxay fursad u siisay in maaragtay waayo waa mahadsan tahay professor Dinari waad mahadsan tahay su-aasha kale aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye kolley dowlad hore Afghanistan ah waxaa lagu soo cafiyay deyn sidaa daraaddeed ma la dhihi karaa barnaamijka haddii dowladda marta la yidhaahdo heavy in debt poor countries wadamada maaragtay deynta aan xamili karin ee maaragtay wadamada sidaa daraaddeed barnaamijka haddii dowladdu soo marto waa laga cafin karaa deynta ma la odhan karaa su-aashaas waa su-aasha koowaad su-aasha labaadna waxay tahay nooca ay tahay deyn cafinta horta maxay tahay su-aashaasna waa su-aasha labaad waa mahadsan tahay asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم أول السلام عليكم دمان صبر العشاء بروفيسور والناسنتي بروفيسور أحمد بن حي سؤال كونه ردينا دين عفيفة سوماليا من بعض المرة ردينا لكن سي قام لعي فقط الدولة دي ولا بربطي دينتن ولو تفاصيلك سو بروفيسور قسم الله سبحانه طبعا صدق بص انا كراسي حتى كلام في الإلهام بسم الله السلام عليكم هذا السلام يا كسو qaybgalayaasha run ahaantii markii la dhaho maxaa ahay madalo badan oo looga hadlaya deyn cafinta ka soo qayb galay marka inta badan wasaaradda maaliyadda markii la soo hadal qaado waxa ugu soo dhacayaba waa wax la dhahay deyn cafinti ma la isdhihi karaa wasaaradda maaliyadda inay shaqooyinkeedii kale ay ilowday oo kaleeto inay kaliya focus saareyso deyn cafinti waa ka xumahay wasiirka kama soo qayb galin su'aalahaas asigii quseysay professorka waxaan weydiin lahaa muxuu ahaa sidoo sheegay deyn cafinta iyo maxaa isku xiray raw materialka macdanta Soomaaliya maxaa isku xiray in dawladda laga cafiyo deyn cafin loo sameeyo maxaa isku xiray marka materialka ama raw materialka dalka yaalo kale maxaa isku xiray محمد waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka anoo ka faa'iideysanayo nasiibna aanu helay in madashan aan professor dhaqaalaha bartay aan kula kulmo professor saad noo sheegtay dhibaatadii deemanka hadii la qaatay iyo marxaladii laga kulmayay waad noo sheegtay okay adiga waxa tahay professor ku takhasusay dhaqaalaha okay ayadoo dhibaatadaas aan ognahay dhibaatadina aan ku dhex jirno xal yiraahdo qodob hadii ku gaartay kugu jabto kugu tagtay inta dambe dhiigeeda iska celi marka hadda waaba ugu tagtay maxaa xal u ah hadda oo deemankan si aan iskaga gudi karno amba wadada saxda ah hadda u mari karno maxay tahay horta waxay su'aasha hore oo khusayl inta badan oo ah dokumentiga dhumay hal dokumenti aad uu ka maqay adduunka wada yaala waa la raadsan karaa xalay ay ugu dambeysay 4 saac waxa akhrinay dokumenti lacag oo dawladda hore markii faranka valuta la sameeyay dadka ganacsatada bangiga lacag dhigayeen bangi kale lacag loo dhigay dibadda badeec ay ku keenayeen iyadoo lacagtii ganacsatada bangiga kala jirto ayaa waxa dhacay dagaalka sukeeyay lacag dhowr iyo 20 milyan oo bangi Itaaliya ku yaalo la dhigay si ganacsatada Soomaaliya ay uga qaataan oo inta lacag ka shubay oo alaabtooda dib u soo noqdaan aan ku arkay inay waaga maqanta wasaaradda khaarijiyada oo Talyaaniga ay leedahay lacagtaas dawladda aan kala xisaabtano markay timaado aan u caleynaa ganacsatada laftii waxaan sidii hormuudba markii barakaad la xiray lacagta dadka idaa tartiib tatuuleeyay lacagta ganacsatada Soomaaliya ka maqanta waxaan hadda soo saarto abay ku yiraahdeen ganacsatada adigu noo raadi lacagta Talyaaniga sheegay ilaa shakhsiyaadii ka wada maqanta Soomaaliya mid asiyada kuna uga jirto mid 70 kun waa iska sabreen dawladda la dhacday leeyahay qolada waa haysaa wali يعني ما قال بر هرتا سغاشر يا فرتي خوغا غرعسنتو wax ka fartay waa baqlay wixii yar in laga soo qaado waa dhowr iyo 20 milyan ganacsatada ka baqan dokumenti kasta marka waxa uu dalayahay hadii la raadiyo waa la heli karaa
laakiin arrinkaaba teena kale weli ku mashquulsan lama raadin deyntan ma laga cafi karaa si angola darsi loogu filan waxbaa laga cafi inta lagu leeyahay waa qiyaas kartaa hadda weli su-aashaas waa marka su-aasha aniga laftaydu aan rabay inaan weydiiyo qofka ka socda maaliyadda ma aha wasiir keliya qof hadduu ka imaanaya caawa su-aashaas aniga lafteeda ii qoreen shuruudahaas lagu xiray meeqaan ka tegi karnay maxaa lagu khasbay waa la gorgorootaba adduunyada shuruudahan ma aha shuruuda figsida qaarkood kuwa hore khasab inaan saxiixda ahay maahine dowladdii hore maxay ku qaadatay ee deyntan hore u sheegnay waxyaaba badan ay dowladdu ku qaadan kartaa deymaha dowladaha ay ka qaadatay ee multilateralka ama bilateral laba dhinac dhex marta waa gooni laakiin deymaha kale oo world bank aan ka qaadanay waa waqtiyada ugu dambeeyey deymihiina laku burburiyey ama nalaku khasbayay inaan madax hoos u dhigno ay ahayd gacanku ogeedeen isla qabweynihu lahay waqtiyada hore laakiin labadaa hay-adood markay soo galeen saameyn weynay ku yeesheen deen cafinta iyo maxaa isku xiray raw materialka ninka dayn kugu leh ee waxbaan kaa cafi horta wax cafis waa lagu cafiya iska bax ma jirto shuruudaha meesha yaal ama deyntaa la xawilaa labadaas u badan tahay ninkii loo xawilo wuxuu leeyahay ninkaan shalawba iska bixi waaye waxaan aan siiyey to ka keenaya waa in la yidhaha marka khayraad muxuu qabaa lagu xisaabtamo shidaal mau qabaa gaas mau qabaa moos badan mau dhoofiyaa liin mau dhoofiyaa maxuu haystaa ninkaan taasaa waxay ii tahay aniga damaanad marka aan ku ogolaanayo deynta aan ku lahay inaan xawilo marka berri damaanad shuruuddaasi hadduu ii keeni waayo maxaa suubinaa shuruuddaasaa jirto kuwaasaa waxay ii yihiin marka damaanad laakiin qof oo iska ebere inta la yidhaha deyntina ka cafi haye mid kale sii automatically su-aalaha soo baxe wartii uu bixi waaya tan maxaan ku siiyaa maya anaa warqadan kaaga saxiixa xoolahaasuu qabyaa gurigiisaa la xaraashaa meelaha waa la yidhaha hadduu iska bixi waaya gurigaan ka xaraashaynaa ilmaha kariha u raadiye adduunyada sida barnaamijka heshiiska oo barnaamijka mid publican oo ekaan karaa maxaa xal u ah sida u gudnaa aniga waa idin sheeg wax kasta ma aqaan dad wasiirra ahaa jira inta joogo la socda siyaasiyiinaa joogto dad iga hor dhaqaalaha bartaa joogo horta aniga cilmi gaablo waa maala cilmi weyn meesha lama fadhiyo su-aashaas marka su-aale aan weydiin lahay oo cado dartooda u miday ee aniga lagu soo celin waa mahadsantiin تعالى وبركاته dhammaan waa wada salaamantiin marti sharafka barofesoryaasha waa wada salaamantiin qof kasta kursiga uu fadhiyo madaxa ku fadhiyo baa ku salaamaya idin alle insha Allah barofesorka waxaan weydiin doonaa commentina waa wataa su'aalana waa wataa anigu waan jeclahay wadankayga in deynta laga cafiyo laakiinse in deen liskiga cafin isxaan dadka deynta naga cafaayo waa inay arrimo kala wataan taas waa raacsanaani koo tan xigto waxaan weydiinayaa professorka deynta ma iskiga gudi karnaa anaga waxaana dad dhaqan haddii runta la isku sheego haddii aan dad dadaalayeen nahay shidaalaan soo saari karnaa waxaan qabnaa beero xoolaan qabnaa kalluunaan qabnaa badadaan qabnaa maraakiibaan qabnaa haddii aan dakhli ka soo saarna deyninka ma iska gudi karnaa professor halaas weydiin بروفيسور وما سنتهاي سؤالها سيق قروح بدن أقول جوابي سي ديناري يتيم كماشي فديا هل سؤال باورت قد حقوق حيسانية ديدا أو وحل عقت نقوله مرة اللي بقى الله جهل العقت نقوله العقت نقوله وبنجيو أو الدور كي بنجي ده حق الصومالية عد كهلا يسوع أما كسعته أما دواد كسوق قيب جليس أو بنجي ده حقها مرنا ما رجعنا أو وزارة دي كلا أو سيدي رغبي إن قيب كقاتان أو wasaaradii xoolaha oo kale iyo tii kalluumaysiga iyo tii qorsheynta kaliya waxaan haynaa wasiirka maaliyadda iyo tiimkiisa oo dhaqdhaqaaq ka sameynaya arrimahaas oo kale waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo tiimka dhan inaan discussion ka sameeyno arrintaas oo tiimab kale ka soo qayb galaan su'aashaas okay bismillah professorka iyo ka soo qayb galayaasha waa salaamaya horta wasiirkii ومقيها لكن أنا مو في لي بعد وزيركم إنه ما نصف الدولة ما بقى برام بين البشرة كلهم كانوا كلا قيب قش لكن بروفيسور كوكما سنت هاي افتين كأنه بحث
deyn adiina laga cafiyo waxaan looga bedelanaa sidaan u garta kheyraadkeena ayaa iftiin noocaas ay baxay aniga professor haddii isbedelka deynta oo cafiska deynta macnaheedu wuxuu yahay in looga bedelayo kheyraadkeena qayb ka mid ah anagoo waqtiga aan diyaar u ahayn kheyraadkeena inaan ka wada warqabno martaasaan u fahmay professor haddii aad mar kale aad noo iftiimiso cabirka isbedelka oo nagu samayn kara kheyraad cafiska deynta wuxuu nagu samayn karo inaad ها أنا وعام سنة أنا أسكت كرني تروي بدن وكذا العق بدن مع العتن الكلية وقت الله قايب كرا أنت قف أنت لقى صو أنت لو يرى كل دي كرا ما هذا يعفس نص كبير الدين تسوحه وبعدين لا يعفي له أنت صاهرته وقت يا قبصر هاي سف فضود ولا بقى أركتدي دواء بالعادة هاي أنا أسكت بحكر عام سنة رول سؤال الله رول سنترال بانك سنترال بانك دولها marka aan bilaabo qaar badan oo ciyaalka alada loo bixiyo CBB da ma leeyahay cayaanka baraha bulshada ma ka wadin waxay aad igu dhaliileen waxay yahay waa mucaarad war mucaarad maxaafad nameey saar iga naqad su'aash ma wuxuu rabay gudoomiyaha bankiga dhexe waa loo diiday wallahi ma ba ablikaareen arjada xataa ma qoran isku ma dayin maxaa u diiday shuruudaha ma buuxin kara laga rabo board of central bank yarahay board of central bank waa ka sareeya gudoomiyaha sharciyan marka la yiraahdo shuruudaha gudoomiyaha bankiga meesha ku qoran yihiin inta sano bankiga ka shaqeeyo inuu macalinka aniga bankaari ii dhiga ugu horeeya joogo baladka oo bankiga ka soo shaqeynaya 30 sano ka badan shuruudaha looga rabo qoran oo aqaan ani ma buuxin karo dad halka mid aan buuxin karna arjo qorto sida ana laga karo xal awaadaadii ana wali waxa ma daadan horta central bank doorkiisa board of hadda markii la sameeyay guddiga dhaqaalaha waxay idin barboos kareen banka maaliyadda isku xaabsat maaliyadda bankiga dhexe ma hoostaga wasaaradda maaliyadda waa inta autonomy hay'adka madax bannaan waaye wuxuu leeyahay siyaasadiisa doorka central bankiga ana boorkiisa anaan iska uga tagay hal ugu dar waa leeyahay inaan hawlo kala yeesho markaas central bank daliil ma aha daa'ira doorkii looga baahnay inuu maaliyadda hoostaga ma wada shaqeynaa ka dhaxayso hay'ad madax bannaan waaye doorka ay ahayd inuu qaatana ma qaadanaa dhihi karaa door muhiima oo ku leeyahay dhaqaalaha waddanka lacagaha oo dhan asaa mas-uulka ah wasaaradda shaqadeeda waxay u badan tahay qaybta oo fiskaalka laakiin qaybta monitoringka waxaa u badan bankiga su-aasha ugu dambayso oo qof kale uu weydiiyey runta daa'ira ma fahmin su-aashaas maana wax qoray dhaafto baa qaal hadal iska furan waa kaad su'aal kom koreeyda